أدونك هو دار ممر ومال قف ولبا وصومر أيه وضالت دبتنا مرير بالوجود ضوضوبة وحليلي ويل باريرك كسوكر لي قبل بسوكر لي برينا واضح حيسا مرك لا أنت كوجود ضوضوبة بيورني ينوى ميدا حباشة جاية أدوق أول مرير الوجود ضوضوبة دي ما نساه هذا السيدي يوم مرير وكلا لقى راعية بس هذا بحيسا إذا هو ممر وما لا مريسه وحقيقة ما لنا ينفقين والله قاضيون وحانا كدم بيا من ربي تلمامية لكلن كالله أفضل بين ربي لكل مدونه إلا حساب دونه جنة إيا النارين كدم بيسه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا بإله إليه dadku wax fog buu u arkaya annana wax dhow baan u aragnaa buu nabigu ayuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala sawgeed baa ilaahay muuminiinta isagoo la hadlaya wuxuu leeyahay alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaah wama nazala min alxaqi walaa yakunuu kaaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim alamadu faqasat quluubuhum wakathiiru minhum faasiquun alam ya'ni miyaanay gaadhin baa la leeyahay miyaanay dhicin kuwa mu'miniinta ahi inay wakhti gaadhaan qalbigoodu uu ilaahay dikrigiisa u khushuuco iyo waxa xaq lagu soo dejiyey wakhti ay waantoobaan weli miyaanay gaadhin baa la leeyahay dadka mu'miniinta ahi ayuha alaxiba maanta waxaad qaban karto ayaad berri u calaacali saa daraaddeed maanta inaad u diyaargarowdaaba habboon berri markaad geeriyooto rabbi irjicuuntaa badan doonta إلهو جانس نسي إلهو يعلي لكن قفك هدو نرشها سكوبا وأركو هدو حقيقة إنانو بريبا نولان كرين هدي ربي قوره وفهمه وحين قونا سامانتو هايستايين وما انت كفايديستو انت بدن تطكو مركو حدنتي ساقرتا قورانو فولين كراينين قورانو وحقبض لحين مالمها الدنبي كما قد السنة مالمها هاقي هورين كواتشالي سامرتي iyo kuwa hadhay waa isku mid maanta haddaad shaqaysan kari weydo berrina waa adagta inaad shaqayso bal mar kastoo aad da'i kuu sii korodha waxay u badan tahay in daalka iyo cajsiga iyo wahsiga iyo tamaryaridu kugu sii kordhi doonto walidaalika uu nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo nin saxaabiya waaninaya wuxuu ku yidhi waa shan u qaada buu ku yidhi dhallinyaranimadaada ka faa'iidayso inta aanad gaboobin caafimaadkaaga ka faa'iidayso inta aanad bukoonin waxayntaada qaninimadaada ka faa'iidayso inta aanad faqrinin inta badan dadku markuu xooluhu dhaafaan buu is idhahdaa haddaad wax ka bixin lahayd haddaad tolkaga wax ka tari lahayd haddaad aakhire wax geysan lahayd firaaqadaada ka faa'iidaysa buu nabigu leeyahay inta aanad shuquloonin dhallinyaradu inta badan waxay dhahaan firaaqada xaggaynu wakhtiga ku soo dillaa maanta waa cimrigaaga qayb ka mid a ayaa le xaggaa ku tuuraa wakhtiga xaggaynu ku dillaa xaggaynu isku dhaafinaa maqaaxidaa la tegaya maanta oo dhan baa la sheekaynaya waa cimrigaaga in ka mid a maanta oo dhan baa tv la daawanaya wax laga helayaa ma jiro noloshaada haddii la xisaabiyo intaad tv-ga daawatay intaasoo sannadood bay soo baxaysaa intaad maqaaxi fadhiday intaasoo sannadood bay soo ka warran haddii lagu dhaha intaa cimriga ha lagaa jaro maada qabasheen 10 sano dhowr iyo 10 sano markay soo baxdaa maad qabasheen markaad haysato se saad u isticmaalaysaa waad saydhinaysaa qofka biniaadamkii hantida ugu weyne uu haystaa waa cimrigiisa hantida ugu weyne aad haysataa waa wakhtigan yar wakhtigiibaaba waxaad ku qabatay daaya aad la'day meelaad ku disho xagaynu wakhtiga isku dhaafina xagaynu wakhtiga ku dilla xaga waa adigoo leh cimriga in ka mid a xaggaa ku tuuraa noloshaydii cimrigayga in ka mid a khasaare ah أنا ربنا حقان جاية ولذلك النبي يقول لي فراغك كفايديسو أنت أنا مشغولين قفكم مركز توسيو وين هذا مشغول كيسا بدنيا وهي حديدكم بالشدة للي يا كبدن نكنا اللي يرضي حديدكم للي سادرد قفكم داديسو مركز تغيرت وقتك يسودان سجاله لكن أنت بدن اللي يرضي ما قرأته كما فايديسو قفكم مركز سيو وين هذا بنا يا وقتك أكو كورنيا بيسرا فريلا تكساعدات بكو يرادا سترس بقادا سولي هبل لبلا لا حاجه لبلا كلا غيركينا حق سويه ولدنا waxan bay rabtaa idan nabigu wuxuu leeyahay warinta aanad mashquulin
firaqada ka faa'iidee intaydan geeriyoon baa nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam nolosha ka faa'iidayso war kuwa iimaanka laga helayo war alla ka cabsadoo berri ka fakara baa leeyahay nafi waxay berri u dhigatay aakhire waxaad geysatay kaa eeg baa ilaahay yidhi idan ayuha alaxiba ilaahay wuxuu ina leeyahy laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab man yacmal suu'an yujza bih yididiiladiinna iyo umniyadiinna iyo waxaa iska rajaynaysaan ahlu kitaabka iyo idinka toona maaha baa ilaahay yidhi ee waa maxay man yacmal suu'an yujza bih nin waliba wuxuu shaqaystaa buu leeya rabbi leeyi ولذلك بقى إلهي النبي يسيو حكوليه وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وحدود دكتاه وقد دكتاه وقد دكتاه يوم الحسرة مال انت على عالك مال انت التيران يدي يمرقده وقدك هدي أملكو يسكر يراضه وديار قروقو يراضه وضدك سيدا كل انتان على علبك الضميدون يا ليتني قدمت لحياتي ربي رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت إلهنا بن آدم كوية قالنا يوحو تلمامي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه با إلهي وحكا عجب بدن بن آدم بطبع قيس هدي اللي عيلين لها با إلهي هل كي أمي كبلا من آيات غريب صماها إن كان صهار كان نار يبلا آيات جرتا markuu halkan yimaado haddana halkii uu dib uga maysi karaa hadduu dib loo celiyo ba ilaahay halkii uu ka maysi lahay waayo fitratul insaan waa tii uu ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha alladina aamanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat liqaddin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون حبال بصومر النبي مركزوا وحول من صاحب هذا القبر وحباشني وحباشي كما رسالة دوا هبل أنن دنتو ميدا حباشي أيو النبي يستول تاقو في حباشني وكما وهلو قد حباشن هبل باكو جرا النبي الصحابة دي انتو كجيستو مركا وحوله ركعتان أحب إلى هذا من بقية الدنياكم ونبو لبا ركعدود وصلاة وتكدو أيام ما أنت نيكا جعليي أدونك هاي ستارونا نيكا هدي الله إذا أدونك ودن إياه لبا ركعدود كيبا دورانيسا لبا ركعدود بك جعليي ونبو يعني حبال دوشيد ونبو هو وعدين يا صحابة ديس حانو شيغيا لبا ركعدود مركا لقاada halkaas inay ka qiimo badan tahay wixii dunida la soo qabto oo dhan ayuha alahibba adduunyo jacaylka adduunka marna lama naco adduunka iyo jeclaantiisa iyo noloshan iyo jeclaanteeda bini aadamku maftuur buu ku yahay laakiin waxaa la inoogu talagalay inaynu nafta rabbayno oo aakhiro jacaylkeeda ku bedelano man kaana yuriidu alxayaata addunya baa ilaahay yidhi man kaana يريد الحياة الدنيا وزينتها نينك دونية أدونك النولشيس إيا قروح ديدا هدو في رسائرية إرادة بالغا عبري من كان يريد باليدي نينكي دونية نولش أدون إيا قروح ديدا نوفي إليهم أعمالهم فيها وحي شقيستان أدونك واصيرنا وهم فيها لا يبخسون لقبنا نقصامين أيه لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون لكن كوا سما إله إليه وكوا أنا آخرة حبكوا لهاي نار ميانا وحكا الآخرة ماله وحي شقيين ولا بريه عمل كودنا وباطل يعني أدون بو النولا adduunkii wuxuu ka calaf qaaday buu leeyahay aakhiro mar haddaanu ku xisaabtamin aakhiro goormaad ku xisaabtamaysaa marka wax kastoo aad haysato intaad aakhiro qabadsiisaa ay kaala qurux badan tahay intaad adduunka ku hayso wakhtigaad ku bixisay aakhiraad ka jeceshay wakhtigaad adduunka ku bixisay cilmigaad aakhiro ku bixisay baad ka jeceshay cilmigaad adduunka ku bixisay hantidaad aakhiro ku bixisay baad ka jeceshay hantidaad adduun ku bixisay abuurkaaga waa inaad xoola jeceshay waa saa ilaahay ku abuuray laakiin waxaa la tilmaamay haddana kuwa aakhiro wax geysanaya inay maxay yihiin
kuwa bixinaya iyagoo ma iyagoo necab bay bixiyaan xoolaha maya wayuطcimuuna الطacaama calaa xubbih miskiina wayatiima waasiira ilahay wuxuu kaaga markhaati kacaya adoo bixinaya haddaynaad adduunkan jeclayd laakiin inaad naftaada ka goyso aad ku tala gashay inaad aakhira u horraysiiso bini aadamku wuxuu dunida u joogaa in la itixaamo xorriyad baa ilaahay siiyey waxaana loo abuuray qaab uu wax dooran karo laakiin doorashada uu dooranaya waxay u baahan tahay caqli iyo aqoon iyo iraada go'aan asal waxa uu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari warinaya cabdillaahi bnu mascuud uu ka warinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigaa wuxuu jeexay buu yidhi khad murabbaca square khada fargeesla buu sameeyey dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam bartanku haddana khad kale ka dhex saaray fargeeska khadkii ahaa ayuu khad kale ka dhex saaray khadkaa dhexe xariijimuu u yeelay waxau ku tilmaamay markaas waxaan afarta hareerood kaga wareegsan qofka waa ajashiisii waa geeridii oo aanu dhaafaynin khadkan ka dhex baxayna waa amalkiiyo rajada geerida meel ka fog ayuu qofku inta badan ka rajo qabaa bini aadamku adduunka wuxuu ka baxaa isagoo weli qabyo arrimuhu ka yihin isagoo weli wuxuu qorsheeyey ay qabyo tahay buu baxaa waxa uu kaloo nebigu xariijimaa yaryara kale ka baxaya ku tilmaamay inay tahay acraadu dunya mashaakilka adduun oo kan xaganayo kani xaganayo kani xaganayo aanu marnaba mashkilad la'aanaynin idan wuxuu xadiidku sawirayaa qofka bini aadamka ah rajada iyo amalka uu qabaa yididiilada uu qabaa inaanay xad lahayn inay cimrigiisa iyo wakhtigiisaba ka dheertay hada huwa alasl laakiin waxaa la rabaa qofka muslimka ahi inuu masaladaa xadeeyo oo meel ka dhow uu arko xaqiiqada labaad aynu tilmaamaynaa waxay tahay geeridu waa alxaqiiqa alwaxiida almuctarafi biha bayna annaas waa xaqiiqada bini aadam oo dhammi uu rumaysan yahay cid kastaaba inay geeriyoonayso waxaad garan kartaa un dadka intii kugu hareeraysnayd geeridooda ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay isagoo nebi maxamed la hadlaya innaka mayitun wa innahum mayituun innaka mayit waad dhimanaysaa baa la leeyahay waa qasab iyaguna way dhimanayaan kuwan kaa soo hor jeedaana way dhimanayaan kullu man calayha faan waxaa nolosha kor saaran oo dhammi dhammaantood waa dhammaanayaan baa ilaahay leeyahay wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld afa in mitta fahum alkhaaliduun adiga hortaa cid aanu waaritaan siinay ma jirta baa ilaahay leeyahay adigu haddaad geeriyooto mayagaa waaraya baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala idan haddaan nebi maxamed sayid alkhalq ilaahay doortay ilaahay ku leeyay waad geeriyoonaysaa waxa ka dambeeyana waa geeriyoonayaan saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahay qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum geeridan aad ka baxsanaysaan ee aad ka rooraysaan waa idinla kulmaysaa hadday meele ku xanuunto dhakhtar raadiya kan raadiya adduun waxaad haysato ku bixi waxaad rabtaa bal sidii aad maalma u sii jiri lahayd ayaad dadaalkeed ku jirtaa laakiin ilaahay wuxuu leeyahay waa mulaaqiikum waa idinla kulmaysaa maxaa ka dambeeya uma turadduuna ilaa caalimi alghaybi washahaada fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun waxaa laydiin celinayaa baa la yidhi caalimu alghaybi washahaada allaha waxa maqan iyo waxa joogaba og allaha aan waxba ka qarsoonayn allaha og wax kastoo aad samaysay hadduu yahay waxaad qalbiga ku caqiidayso ku haysatay iyo hadduu yahay waxaad ficil ahaanba u samaysay wax kasta oo kaa soo baxay qofka bini aadamkaa rabbiga og oo weliba ogaan qura maaha fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun baa ilaahay leeyahy oo idin warrami doona waxaa samayseen oo dhan
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نف ولبا geerida dhadhamin baa ilaahay leeyahay kadibna wixii aad shaqaysateen baa laydiin oofinaya laydiin dhammaystiraya. ninkii naar laga durkiyo ee janno la geliyo kaas baa liibaanay baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. xaqiiqada koowaad waa inaad amal badan tahay. xaqiiqada labaadna waxa weeyaan in laabud aad geeriyoon doonto. xaqiiqada saddexaadna waxa weeyaan inaad rabbi la kulmi doonto iyo xisaab iyo qiyaame iyo janno iyo naar. waxaa layna faray arrinku mar hadduu caynkaa yahay inaynu amalka soo gaabinno, adduunka rajada aan ka qabno iyo waxqabadkiisa adduunyo ku saabsan inaynu soo koobno, geeridana inaynu xoog u xasuusanno, ilaahay la kulankiisana inaynu xasuustiisa badinno. saa awgeed baa ilaahay wuxuu leeya yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allah xaqa tuqaatih walaa tamuutun ilaa wa antum muslimuun. war kuwa iimaanka laga helayow ilaahay rumeeya, kuwa iimaanka laga helayow alle cabsidiisa badiya. ittaquu allah, ilaahay ka cabsada oo ha geeriyoonnina baa la yidhi, ha geeriyoonnina ilaa wa antum muslimuun, idinkoo muslima mooyaane. oo ha geeriyoonta miyaynu isu haynaa wakhtiga la geeriyoonayo? kaama haysid, laakiin maxaa lagaa rabaa inaad isu hayso? inaad islaamnimada laasimtid. wakhtiga geeridu imanaysa garan maysid. maxaa waad dhiman, ma barraad dhiman, ma bil baad sii joogi, ma sannadaad joog, garan maysid. laakiin waxaa lagu yidhi geeridu ha kuu timaado adoo diyaara, adoo muslima oo ilaahay isu dhiibay, geeridu ha kuu timaado. walidaalika baa awraadda nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ina baray waxaa ka mid ah habeenkii markaad seexanayso inaad isa sii dhiibto tidhaahda ilaahu naftatan haddaad qabatana waxa aad dadka saalixiintaas aad u faxfadha, ilaahu haddaad soo celisana yacni waxaad ku talagelaysaa wardigan aad akhriyaysaa macnihiisu waxa weeyaan waa seexanayaa se garan maayo inaan soo kici doono. marka rajada waagu inuu kuu baryi doono baad meel iska dhigtay. waa wardiga aynu akhriyayno markaynu seexanayno. marka aad soo toostana wardi kale la yidhi oo akhri oo ah ilaahay inooleeya alxamdu lilaahi aladii axyaani bacda maa amatanii wa ilayhi nushuur. ilaaha dib ii soo kiciyaan ku mahadinaya. ilaahu jaanis baad siisay baad leedahay. habeenkii markaad seexanaysana waxaad leedahay ilaahu naftan haddaad qabatana u naxariiso, haddaad soo celisana saalixiinta waxaad ku ilaalisa ku ilaali. haddaad soo toosto aragto inaad waa kuu baryo aad indhaa kala qaadayna waxaa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa ilaahu adaa mudan, adaa ammaanta leh, adaan kugu mahadinaya, geeri dabadeed i soo nooleeyey. idan waxaa la tilmaamaya qofka muslimka inuu diyaar noqdo. markaad sii seexanaysana geeraad diyaar u ahayd, markaad soo toostayna waxaad u arkaysaa jaanis aad camal ku siiso, ku samayso in lagu siiyey. idan kaa wardi ka dhiga baa lagu yidhi. haddaynu awraaddaynu akhrino habeenkii markaynu seexanay markaynu soo toosno aynu fahamno waxaynu garanaynaa in layna leeyahay istaciddu, war diyaar noqda. oo waa walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. iyadoo intaasoo xaqaa'iqa laynoo sheegay ayaa haddana waxaa la yidhi akharu nnaasi waa ghaafil. dadka inta badani waa dhoohani, waa moogani. xaqaa'iqda agtiisa taalla ee nafta bini aadamka iyo hungurigeeda uu og yahay iyo waxay raadacaynayso, ee uu ogyahay in geeriyi ka dambayso, ee uu ogyahay gooruu dhimanaya inaanu garanaynin, ee uu ogyahay qiyaama iyo xisaab iyo rabbi is-hortaagii inuu ka dambeeyo, ee uu og yahay in loo sii sheego la yidhi war ha dhimanin adigoo muslima mooyaane. intaasoo xaqaa'iqa isagoo og ayuu haddana bini aadamku ghaafil yahay. ghafla, ghafladu waa dhoohani. waa waxay ahayd inaad xasuusato la ilaabayo. waa waxay ahayd mar kasta inay xasuustiisu kula joogto oo sidii qof aan ogayn aad u dhaqmayso. walidaalika baa ilaahay wuxuu leeyahy iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii gaflatin mucriduun maa yaatiihim min dikrin min rabbihim muxdathin ila istamacuuhu wahum yalcabuun laahiyatan quluubuhum.
dadka xisaabtoodu waa dhowaatay baa ilaahay leeyahy laakiin xaalad ay ku sugan yihiin oo ah ghafla iyo icraab iyagoo ghaafiliina oo rabbi ka sii jeeda oo qiyaamaha xasuustiisu ku badnayn oo xisaabta xasuusteedu ku badnayn ayuu nool yahay xagga rabbi waana wax lagu xasuusinaya ugama timaado cusubi baa ilaahay leeyahy ilaa iyo waxay maqlaan iyagoo cayaaraya si jiddiya uma qaataan warka markaad si dhaba u qaadato waxaad ku tala gashaa inaad fuliso haddaba ayuha alaxiba maxaa keenaya inaynu ghaafiliin noqonno maxaa keenaya inaynu tuululamal rajayno inaynu weligeen noolaanayno inaad tilaada kollayba waad ninka dhallinyaradii wuxuu is leeyahay kollayba 60 iyo horta waad gaadhi doontaa ka 60 joogaana wuxuu is leeyahay malaa kollay ilaahay ilaa 80 90 waa ku gaadhsiin doonaa idan dadku rajo qabaa uun ghafladan waxaa keenay tuululamal rajo aad ka qabto bal horta kollayba waxooga baad noolaan doontaa hadhow baad toobad keeni doontaa kan rabbigii caasinaya ee maanta cisyaanka samaynaya wogii waxaan wadaa inuu cisyaan tahay inuu ama zina tahay ama khamri tahay ama been tahay ama xaaraan tahay ama boob tahay ama dhac tahay ama gish tahay ama dulmi tahay wuu ogyahay waxa kanuu samaynayaa inay xun tahay laakiin wuxuu isku waarinayaa saa dambaad toobad keeni barraad ilaahay u soo noqonay barorta qoladan iska dhici ilaahay markaa wuxuu ina leeyahay innahum yarawnahu baciidan wa naraahu qariiba geerida iyo qiyaamaha iyo waxa kan dambeeya iyagu wax fog bay u arkaan baa ilaahay yidhi annaguna baa ilaahay leeyahy wax dhow baanu u arkaynaa saa ogeed baa ilaahay gaaladii wuxuu yidhi darhum yaakuluu wayatamatacuu wayulhihum alamalu fasawfa yaclamuun iska daa baa rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala ha iska cunaan baa la yidhi maladaati alxayaa cunnada wax naf leh ha moodaan oo ha iskaga raaxaystaan ha ku tamatacaan wayulhihum alamalu fasawfa yaclamuun laakiin rabbi wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala siimaan dambe wakhti dambe ayay fahmi doonaan walidalik baa ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahy afara'ayta in matacnaahum siniin bal ka warran baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala in matacnaahum siniin dadkan haddaanu sannada u raaxayn haddii cimrigaba loo dheereeyo uma jaa'ahum maa kaanuu yuucaduun cimrigaba haddii loo dheereeyo laakiin kadib uu u yimaado wixii loo yaboohayey maa qara canhum maa kaanuu yumatacuun baa ilaahay waxba kagama filo ka deeqi maayo wixii ay ku soo raaxaysteen oo dhammi waxba noqon mayso saa awgeed baa ilaahay duuluu maagayabu wuxuu ku tilmaamay walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaatin wa min aladiina ashrakuu yawaddu axaduhum low yucammaru alfa sana wama huwa bimuzaxzaxihi min alcadaabi an yucammar wallahu basiirun bima yacmaluun ilaahay isagoo yuhuud ka warramaya waxaa la yidhi waxaad heli doontaa iyagoo ah kuwa ugu ilaalin badan ugu jacayl badan nolol calaa xayaa ayan kaanat nolol uun inuu jiro uun kuwa ugu jacayl badan yahuud iyo inta mushrikiinta abaad arki doontaa baa ilaahay leeyahy midkood wuxuu jecel yahay baa ilaahay yidhi 1000 sannadood in la nooleeyo laakiin ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala 1000 sano waxba maaha wamaa huwa bimuzaxzixihi min alcadaab 1000 sano cadaab kaa celin mayso waa berrito 1000 sano berray dhammaanaysaa si awgeed baa ilaahay mu'miniinta isagoo la hadlaya wuxuu leeyahy alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يعني قارب بالليه يعني دعين كوا مؤمنين تاهي إني وقت قاران قلبي قودوا إلهي ذكري سوخ شوعه يوحى حق لغو سودة وقت أيوان توبان ولم يعني قارب بالليه ذاتك مؤمنين تاهي oo aanay la mid noqon baa ilaahay yidhi sidii kuwii iyaga ka horreeyay ahlu kitaabka ahaa qur'aanka waxyaabo badan oo ilaahay kuwii kutubta la siiyey inaga horreeyey lagu ceebeeyey oo aynu samaynayna dee ammaan noqon maayaan waa tajriba bashariya ayaa laynoo soo naqliyey taariikhdu
ومالو بني آدم كو عبرة قاطو تجاربتي دادكي هوري سيدي كوي كتابك اللسيي وقتكو كو ديرادي دبتنا قلبي انقق قاضي با إلهي لي وقتكي كو ديرادي وحي كدحلين وقلبي انقق سيدا وقيت بالنبي عليه الصلاة والسلام وحين وقدق يا ولي لا يزال قلب الكبير شابا في اثنين كما الزوليو قلبك قفك ويني لبد اللي بك أهانيا يعني وحويا قفك وقبوبيا وحبضن وكقبوبيا ما أودي كرو لكن لبا ولي وعد اللي يرو يعني لبا على الشيء والنبي قلت الماميا منك وين يكيري اسكميل بك تاغي هو محل وضني حب الدنيا وطول الامل بالنبي الدنيا جعلك ادونك مرنا لما نعو ادونك هي جعلانتيس هي نولشن هي جعلانتيدا بني ادم كو مفطور بكوي لكن waxa la inoogu talagalay inaynu nafta rabbayno oo aakhira jacaylkeeda ku bedelano idan ayuha alahibba alamalu fi dunya muhlaka adduunka rajadiisan dadku ay sii qabaan tirada badan leh waa waxa lagu halaagsamo aakhiro rajadeeda ayaa raxma ah afaman wa'adnahu wa'dan hasana fahuwa laqih ilaahi wuxuu leeyahay miyay simayin kii aanu yabohnay yaboh fiican oo la kulmi doona yani aakhiro u xoogsaday oo rabbina janno u ballan qaaday oo dabeetana la kulmay كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين كايم سمين با إلهي مدان أدونك وحوغا كسيي وأدونك إنو كبر برسدن لسيي آخرا لكن كوا نار تلا حاضرين يا خميدا لبدا سمين يعني إلهي وحو سكان دين عدقيا نين أدونك وحوغا كهلي سلطة يا العقية وحوغا انت بني آدم كو رادعية وكفهانو وأدونك انت نولا لو بدبديي لكن ما أنتو قدكو قلا نارتي سبلاب ميسو هدونك هدو كونتون سنة لحدا سنة تدواتا سوحو بربر صدبا هدو دميستو أو عذاب بلابو وحا هوري وحبك مجرى كاي يمي سمين با إله إليه سبحانه وتعالى كي أدونك أن وحبدن كو هينين با لكن آخره يمي يساقو ربي الربيسان وحي الله ويبو هينا لغو أبال مرينيو in rajadeenu dheeraato inuu yididiiladan tirada badan la qabno maxaa keena waxay culimadu yidhaahdaan laba shay baa keena midi waa xubu dunyaaga aynu sheegnay waa adduun jacayl oo qofku waxa uu la nool yahay la noolaado ee uu markaa hayo waxa maqan inta badan ma dhaafsado bal tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira tan hore degdegta badan leh aan la nooshiin ayaa jeceshiin baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala tii dambe ee lagu waarayeyna waa ilaabaysaa man kaana yuriidu alxayaata addunya baa ilaahay yidhi man kaana yuriid alxayaata addunya waziinataha ninka doonaya adduunka noloshiisa iyo quruxdeeda hadda u fiirsa erayga iraada baa laga cabiray man kaana yuriid baa la yidhi ninkii doonaya nolosha adduun iyo quruxdeeda nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wixii ay shaqaystaan adduunka waa siinaynaa wahum fiiha laa yubkhasuun lagamana nuqsaaminayo laakiin ulaa'ika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar waxabita maa sanacuu fiiha wabatilun maa kaanuu yacmaluun laakiin kuwaasi baa ilaahay leeyahy waa kuwa aan aakhiro waxba ku lahayn نار مويانة وحكلا آخرة ماله وحي شقيين ولا بريه عمل كودنا وباطل يعني أدون بو النولا أدون كي وحو كعلف قاضي بوليه آخرة مرة دانو كو حساب تمين آخرة قرمت كو حساب تميسا مركا وحكا ستوآد هايستو انت آخرة قبط سيسائي كالا قرح بدان تايدا أدون كو هايسو وقتigaad ku bixisay aakhiraad ka jeceshay waqtigaad adduunka ku bixisay cilmigaad aakhiro ku bixisay baad ka jeceshay cilmigaad adduunka ku bixisay hantidaad aakhiro ku bixisay baad ka jeceshay hantidaad adduunka ku bixisay abuurkaaga waanaad xoola jeceshay wasaa ilaahay ku abuuray
لكن waxaa la tilmaamay haddana kuwa aakhira wax geysanaya inay maxay yihiin kuwa bixinaya iyagoo necab bay bixiyaan xoolaha maya ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إلهي wuxuu kaaga markhaati kacaya adoo bixinaya haddaynaad adduunkan jeclayd laakiin inaad naftaada ka goyso aad ku tala gashay inaad aakhira u horraysiiso ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إلهي wuxuu kaaga markhaati kacaya adoo bixinaya haddaynaad adduunkan jeclayd laakiin inaad naftaada ka goyso aad ku tala gashay inaad aakhira u horraysiiso shayga labaad amalka dheerayntiisa keensada iyo adduun jacaylka kani waa aljahlu bay yidhahdaa kow aljahlu billaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay waad garan weydo ilaahay haddaad dhab u garanayso dhab baad u weynaynaysa haddaad dhab u garanayso dhab baad awaamirtiisa u raacaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa haddaad baratay inuu kariim yahay hani yahay xakiim yahay caliim yahay khabiir yahay sifaadkaasaad la dhaqmaysaa idan waxaad noqonaysaa qof rabbigii toos ugu xidhan haddaad si aanad garanaynbo gaal ka noqoto ama ghaafil noqoto ama jaahil noqoto wamaa qadarullaha xaqa qadrihi gaad ku dhacaysa kuwii la yidhi alle ma weyneeyaan weynidu xaqu leeyahy waxaa la mid ah aljahlu bixaqiiqati dunya adduunka haddaanad xaqiiqadiisa garanaynin ilaahay in badan buu qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa kamathali gaythin acjaba alkufaara nabaatuhu uma yahiid fataraahu musfara wuxuu la mid tahay baa la yidhi adduunkani sidii roobkaa da'ay ee meeshu yaro cagaarantay ee hedhowna baaba'day waxaa ilaahay inoogu tilmaamayaa inay tahay un tafaakhur iyo takaahur iyo caynka kan waxaa ilaahay inoo tilmaamayaa alhaakum الtakaathuru xataa zurtum اlmaqaabir kalaa sawfa taclamuuna uma kalaa sawfa taclamuun xaqiiqatu dunya markay kaa libidho iyana waa wax keena dhibta aynu ka warramayno waxaa la mid ah xaqiiqatu alaakhira markaad garan weydo qiyaamaha 50 sannadood meel la taagnaanayo 50 sannadood qiyaas meel la taagnaanaysoo lagu xisaabayo basharkoo dhami taagan yihi khalaa'iqdoo dhami waxaad dembi gashay ee arkayso lagugu markhaati furayo 50 sana bacdaha janno iyo naar iyo siraad iyo xawd iyo waxaasoo dhan haddaad ilowdo qofku hadduu mahlakada xasuusan yahay maalan haddii lagu yidhaahdo kaynta libaax baa ku jira aad ku qasbantay inaad kaynta ka tallowdo adigoo aan libaax ogayn oo iska laafyoonaya miyaad maraysaa mise waxaad maraysaa adigoo labada hareerood ba eegaya oo hor iyo gadaal iyo sanqadh kasta jabaq kasta kabahaagu kuu baxaya inta kala daayay adoo wada dheg ah oo wada il ah oo soo jeeda oo aan luloonaynin oo riyoonaynin baad maraysaa waayo meesha in mahlaka ka jirta baad ogtay ninka aakhiro oge waa caynka aakhiro iyo waxa dambeeya ninka oge waxaa waagu u baryayaa isagoo soo jeeda wax maqlaya wax arkaya eegaya dunida ku xisaabtamaya maxaa rabbi ogolaya maxaanu se ogolayn maxaa lagu badbaadaya maxaase lagu badbaadaynin isagoo xayaya qalbi nool wata ayuu waagu u baryaya nabigu calayhi salaatu wasalaam adduun baa soo galay nabiga ilaahay imtixaanaadkao dhan wuu mariyey faqri wuu soo maray iyo wax la'aan cabsi wuu soo maray iyadoo laga xoog badan iyo saxaabadiisa la laynayuu soo maray isagoo xoog badan buu soo maray isagoo ciidamadiisu ay qabsanayaan dhulkii laga soo saaruu soo maray isagoo hantidu intay soo gashay ku wax weydiistay laba buurood dhexdood xoolo daaqaya nin qura kule kaxaysuu soo maray oo intuu tolkii u tago uu leeyahay nebi maxamed wuxuu bixinayaa caطaa'a man laa yakhsha alfaqr midaan faqriba ka baqayn sidii buu wax u bixinayaa ee islaama oo xoolaa soo helaysaan uu tilmaamayo nebigu calayhi salaatu wasalaam maca annu saxaabaa la noolayd wax haysata haddana wuxuu door biday azuhdu ayuu isagu door biday zuhdigu waxa weeyaan adduunku inaanu qalbigaaga daynin gacantaada dego hadduu ku soo galana gacantaada inuu ku jiro laakiin nolosha adiga kuu gaara inaad zuhdiga doorato walidaalik
ayaa ilaahay subxaana wa tacaala markuu nebigu zuhdiga doortay malag baa ilaahay u soo diray dabeetana waxa lagu yidhi ma waxaad rabtaa nebi ama rasuul boqora inaad noqoto mise cabdan rasuulan baad doonaysa jibriil baa ku yidhi tawaadic lilah ilaahay isu dhuldhig nebi maxamed wuxuu doortay inuu noqdo cabdan rasuula cabdi rasuula kow waxaa nebigu kaa markuu doortay haweenka badh bay ku yara adkaatay biilkii iyo noloshii yara adkaatay dabeetana waxay warsadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam in nolosha loo kordhiyo ilaahay wuxuu ku yidhi yaa ayuha nabiyu qul liazwaajiki nebi allah waxaad haweenkaaga ku tidhaahdaa in kuntunna turidna alxayaata addunya waziinataha fatacaalayna umatickunna wasarixkunna saraaxan jamiila haddaa nolosha adduun doonaysaan waan idin siinayaa laakiin anigu ku jiri maayo waan idin sii daynayaa dheh nolosha adduunya dhaldhalaalkeedu wax idinla weyn hadduu yahay waa idin siin waayo nimcadaa waa helaysaa laakiin maca daalika waa idin sii daynayaa haddaa ilaahay iyo rasuulkiisa iyo maalinta aakhira doonaysaanna ajar weyn baa heli doontaan waxay doorteen ilaahay iyo rasuulkiisa iyo maalinta aakhiro walidaalika baa isagoo meel seexday oo salligii uu ku seexday dhabarkiisa ku yaallo salliga waa taqaaniin dermada marka lagu seexday aan waxba jidhkaaga ka xigin hadha waxaad soo kacaysaa isagoo jidhkaaga sawirkaasi uu ku sawiran yihi cumar baa arko wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah low ittakhadta firaashan awthar min haada maad samaysatid furaash kan kuu yara dhaamo meel ka yara jilicsan ilaahay rasuulkiisa iyo maad seexatid cumar nabigu wuxuu ku yidhi wamaa lii walidunya war cumar aniga iyo adduun maxaana kala galay wamaa lii walidunya ayuu ku celiyey wamaa lidunya ani iyo adduun maxaana kala galay waladii nafsii biyadih aniga allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaa ku dhaartay buu nebigu leeyahy tusaalahayga iyo tusaalaha adduun wuxuu yahay nin socoto ah oo maalin xagaaya geed hadh la soo maray oo hadhsaday saacad maalinta ka mida oo dabeetana ka tegey tusaaluu nebigu bixinaya waxa wayaan calayhi salaatu wasalaam maalin cadceed kulayl jiro oo xagaaya haddaad safar gasho cadceeddu markay kugu yaro kululaato aad geed hadhsato balaankaaga geed hadhsigani muxuu yihi is odhanaysaa geedkan daar yaroo fiican ka dhisaad maanta hadhsatide boqorrada kibrey maanta saasay yeelaan guri baad arkaysaa la dhisay oo la yidhaha boqorku sanadkiibuu maalin yimaadaa mid boqorradan carbeed ka mid ah waxaa la tilmaamayay gurigiisu 365 qoloo la seexdo hurduuleeye oo loogu beegay maalin bacdeedu intay dhaqaaqayso kijada iyo musqulaa ku yaallaa 700 ah baa bini aadamku si uu nool yahay nebi maxamedna wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam nin safaroo geed hadhsaday ayuun baan la mid ahay buu leeyahy intan adduunka aan joogaaba geed la hadhsaday kama gedisna idan ayuha alaxiba xalku waa qasru lamal xalku waa inaynu yididiiladan dheer soo gaabinnaa xalku waxa weeyaan inaynu aakhiro u diyaar garowno waa xaqiiqa maalin aan fogeyn waa lagu qaadi uun saa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam nin saxaabadiisa ka mid oo dhallinyaro ah cabdillaahi bnu cumar waa nin dhallinyaro ah shaaba waya cabdillaahi dee waa ninkii qaswata uxud laga reebay la yidhi adugu waxaa tahay weli maad qaangaadhin qaangaadh la'aan baa looga reebay dagaalka marka nin aad u dhallinyaro weeyaan ninkaa dhallinyaradaa buu nebigu la talinaya intuu garabka qabtay buu nebigu wuxuu ku yidhi kun fi dunya kaannaka gariibun aw cabir sabiil haddii warka nin weyn lagu odhan lahaa waxaad odhan lahayd dee waa nin warka dunida soo dhameeyey oo waxaa la leeyahy war aakhire adigu kollay cimrigaaga qaadataye aakhire usii diyaargarow baa lagu yidhi laakiin maaha waa nin iminka soo korayo hadda qaangaadhay ama qaangaadhaya wakhtigaa ku jira nin wakhtigaa ku jiruu nebigu wuxuu leeyahy kun fi dunya kaannaka gariib adduunka waxaad ku ahaataa sidii qof stranger ah qof meel aan safar ku yahay soo galay aw cabir sabiil ama qof waddo goynaya adduunka sidaa ku noqo qadiyaddaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wiilkaa yare cabdillaahi bnu cumar ibnu alkhataab uu sheegay wuu fahmay
wiilkaasi waa weyleye saxaabadu waxay naga gedisaneed waa taa waxa loo sheegaa bay weylaynayeen way fahmayeen kadib cabdilaahi dadka markuu la dardaarmayo wuxuu ku odhan jiray idaa amsayta falaa tantadir الصabaax وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك إمام البخاري صار وحدتك كورن جرى ابن عمرنا ورهوي حداد قرابيسته وبرقها سجن إمك آخره وسيدي أرجرو واجا كوبري دونه برينا وتسي شغل تجي دونتا وهالكي بعد أرني كسي وضي دونتا تاه سجن حسابته واحد قدر تعاوى هضيك هابح ده مع حله فلا تنتظر الصباح وكل هداد وبريستنا قلبني بدها سجن حسابته caafimaadka intaad qabto bukaankaaga u sii qaado dadku markuu dhakhtarka gale xanuunsado haddaad imka dhakhtarka tagto oo aad dadka weydiisa maa hiya umniyatak maxaad rajaynaysaa maxaad jeceshay inaad hesho maxay odhanayaan dadka dhakhtar ku jira inaa caafimaado soo maaha inuu ka kaco ka suuqa jooga haddaad ku tidhahdo oo bal caafimaadkaaga ka warran oo maxaan ku haystaa waaba gaajoonayaa buu leeyahy كرنا أمني أبوي وحسلي لا هو يا مرونكو كعيا هدو بليونير يهي وحسلي بليون كهدي اللي إذا ضوضنا لوجو بدل يا ما بحين سووه قلي وروس كحوك سندونا نلا شدي بانو بلا بقولي هاي بررت وحي لو عاف ماذا يورها لو بحيو لكن هدي اللي إذا ضوض كون كبحي وحلو دخدخ ومشي قالين بولي يكون كقاطع صحيح كما qof gaar ah waa dhamaanteen waa inuu haddaanad adigu naftaada wax ka bedelin wasaad u abuurantay saa daraadeed buu ibnu cumar wuxuu leeyahy war caafimaadka intaad ku jirto u sahay qaado bukaakaaga berri inaad caafimaad qabi doonto garan maysid caawaad caafimaad qabtaa waad tukan kartaa waad wardii kartaa waad nebiga ku salliyi kartaa calayhi salaatu wasalaam waxaad doontaad samayn kartaa laakiin berri inaad weysaysan kari weydaababa dhici kartaa جمع يا جماعة إن تقاري وإذا بدع واحد استدعي كرا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسوع من صحابي يوانين يوحو كويري ورشان شان قاضب كويري ضل يرني ماذا هذا كفايدة يسو أنت أنا تجاوبين عافمات كاجا كفايدة يسو أنت أنا بكونين وحين هذا غني ماذا هذا كفايدة يسو أنت أنا تفقرنين أنت بدن تطلب markuu xooluhu dhaafaan buu isdhaahdaa haddaad wax ka bixin lahayd haddaad tolkayga wax ka tari lahayd haddaad aakhire wax geysan lahayd firaaqadaada ka faa'iidaysa buu nebigu leeyahy intaanad shuquloonin dhallinyaradu inta badan waxay dhahaan firaaqada xaggaynu wakhtiga ku soo dillaa maanta waa cimrigaagii qayb ka mid a ayaad leh xaggaa ku tuuraa wakhtiga xaggaynu ku dillaa xaggaynu isku dhaafinaa maqaaxidaa la tegaya maantao dhan baa la sheekeynaya waa cimrigaagii in ka mid a maantao dhan baa tv la daawanaya wax laga helayaa ma jiro noloshaada haddii la xisaabiyo intaad tv-ga daawatay intaasoo sannadood bay soo baxaysaa intaad maqaaxi fadhiday intaasoo sannadood bay ka warra haddii lagu dhaha intaa cimriga ha lagaa jaro maad aqbasheen 10 sano dhowr iyo 10 sano markay soo baxda maad aqbasheen markaad haysato se saad u isticmaalaysaa waad saydhinaysaa qofka biniaadamkii hantida ugu weyne uu haystaa waa cimrigiisa hantida ugu weyne aad haysataa waa wakhtigan yar wakhtigiibaaba waxaad ku qabatay daaya aad la'day meelaad ku disho xagaynu wakhtiga isku dhaafina xagaynu wakhtiga ku dilla waa adigoo leh cimriga in ka mid a xaggaa ku tuuraa noloshaydii cimrigayga in ka mid a khasaare ah aanan rabina xaggaan geeya walidaalika buu nebigu wuxuu leeyahy firaaqaaga ka faa'iidayso inta aanad mashquulin qofku mar kasta uu sii weynaadaba mashquulkiisaa badanaya waayo xidhiidhku bulshada la leeyaa ka badan ninka dhallinyarada iyo xidhiidhku la leeyahy saa daraaddeed qofku da'diisu mar kastoo ay yartayba wakhtigiisoo dhan isagaa leh laakiin inta badan dhallinyaradu ma garato kama faa'iidayso qofku markuu sii weynaadabana yaa wakhtiga kuu kordhiya buu israa 24 saacadood ba ku yaraada stress buu qaadaa suu leeyahay hebel laba la leeyahay xagga laba ka leeyahay reerkiina xag uu sugaya qoladana waxan bay rabtaa idan nabigu wuxuu leeyahay warintaanad mashquulin firaaqada ka faa'iiday intaydan geeriyoon baa nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam nolosha ka faa'iidayso ayuha alahibba rajadan tirada badan leh quraanku wuxuu inoo sheegayaa inay tahay aaladda ibliisku bini'aadamka ku lumiyo waa farsamooyinka
إبليس أديكسده إلهي قرآن وحكو لي إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم بإلهي هو أنت كان نقضي يقول هنونك أنت وعد هذا كذب شيطان كأوحو قرحيي الرجق لي بإلهي لي إذن وأملى لهم أمل كان داري وفرسمة الشيطان وضدك كله ميو نبي آدم حكو يدي مركو ربين وقات كعنه يعني وباهي بن آدم هو قبه ولذلك آدم بهالكاسة قال عمري قال قول يراني يا بالوير قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى جيت كوارتان كما كنت سابق يدي جيت هذا الله يكون عاصي سما كنت سما أوراني النبي آدم الله شيء جيت هتاد عنته أدين بدن شريسه آدنية انتو ضليبين إن بدن شران ويجعليه لكن waxa rasmiga ah waxa weeyaan qofku inuu diyaar noqdo waxa cilaaj ah arintan abuurkeena waxa cilaaj ah dhikru al-maut wal akhirah akhirah xusuusteeda inaynu badino warkuwa iimaanka laga helayo wara la ka cabsado berri ka fakara bale nafi waxay berri u dhigatay akhirah waxad geysatay ka eeg baa ilaahay إذن أيها الأحبة علاجك وين مسألة تانية وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ويلي أكثروا من ذكر هادم اللذات بدي أبو النبي عليه الصلاة والسلام حصوصتان مع معانك كقوية مع معانك كقوية وقيرده روك قال هذا ما حنركي قال هذا ما تشعل قيرده إلا قوله أنا فردان هدي جيرية وحالة وكالة ضريرة وكاك عيا إنه إلا بان بيك جعلي ما جعلها إنه حوالي جيرية بابا إنه دكتور كاك ورطة ما جعل إنه يسير له السيان بين ربا نبي نوحي إليه عليه الصلاة والسلام حصوص تجيري ده بضيع وحصوص تجيري ده وحي نقونيسا ما كان عاوة مساجد كبحنا هذا ترى هذا بالعاوة هذا نفتو سون نقوم ويدو تلو حاجة طبعا دوات حساب تماس عاوة هذا ترى هذا ورنفته حقيقة ورا هذا يبحضه هذا حساب تمي سيدا وقيد بالنبي حلي عليه الصلاة والسلام جيرد حسوس تيد بديع إذن أيها الأحبة أمل كتير هذا بدن له الدنيا شعيل كتير هذا بدن له غفلة تندتك كل عضي يين سيدا قال كو فكروا وفكرين قال كو انت عصوا بوم وتمادى داير أدون إن أتقالوا كل الله أنتو آخر بيلوده فعجب dadka muslimiintii waxay u baahan yihiin iyagu aakhira xasuustaan dadka kalena inay aakhira xasuusiyaan nolosheennu markaynu xisaabinno inay aakhira boos ku yeelato maanta waxaan qabanayo inaan ku xisaabtamo aakhira maxaan geystay caawa markaan seexanaya inaan ku xisaabtamo waxaan soo sameeyey waagu markuu bariyey ilaa iyo gobolku intuu dhacayay ama waad hadlaysay ama mid hadlayaa degaysanaysay socankaa maaha waagu markuu bariyay baynu hadalka bilownaa haddaanaad adugu hadlayna mid kaloo hadlayaa degaysataa markaad seexato bal xisaabiyo intii aad maanta maqashay ama ku hadashay imisaa kitaabka fiican kuugu qoran baad u malaynaysa imisaad saladay baad ajar ka helaysaa imisaad se ajar ka helayna idan hadalkaagu wardu u badan lahaa haddii xisaabtankaagu badan yahay warku wuxuu ku kooban yahay oo naftayda iyo tiinaba ku waaninaya noloshan aynu israacinay aan ka gaabsanno macnaheedu maaha ayaan la xoogsanaya caynkan xoogso laakiin xoogsi aakhire ku geynaya xoogso markaad xoogsanaysa xalaal xoogso xalaashaas iyo cibaadaadkaaga iyo diinkaaga ku dhaafini ku talagalun caawa hadday kaa baxdo waxaad ilaahay la hortegi lahay aqwaasha salafka laga soo arooriyo haddaynu akhrino wakhtigu kuma filla laakiin aqwaal badan ba salafku waxay tilmaamayaan rag ku xisaabtami jiray salaadan salaadeeda inaad tukanayn anigu berri baa is yidhi ma ilaa berri midi wuxuu yidhi anigu ilaa berri kuma xisaabtama ilaa caawa waad noloshaad dheeraysatay buu ku yidhi anigu salaadan salaada ku xigta inaanan gaadhay baan ku xisaabtamaa buu yidhi idan tanun baan si fiican isdhaha u tuko ilaa tii dambe lama hubo inaad gaadhi doontee hadduu arrinku saa yahay salaadaheenna way hagaagayaan salaad khushuuc lay noqonaysa
haddaad se isleedahay kollay maalmaad sii jiri doontaa kuwa dambaad hagaajin baad iska dhaadhicin khaatimadaad fiicnaysiin doontaa ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu khaatimada khayr inoogu khatimo